kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Laascaanood ciidamada SSC Khaatumo oo dhufaysyo badan ku dumiyay ciidamada maamulka Somaliland iyo aaga ay ku sugan yihiin labada ciidan ee SNM iyo SSC oo laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan xilli saldhigga Gooja Cadde ay isaga baxeen ciidamo ka kala tirsan beelaha Habar Jeclo iyo waliba sidoo kale beesha Garxajis xaaladda guud ee aaga Gooja Cadde oo ciidamadii ugu badnaa ay isaga baxeen iyo dhaqdhaqaaqyo ay bilaabeen ciidamada kooban ee ku soo haray taliska Gooja Cadde ayaa daawan doontaan Fuhiimo Yuusuf Quuje oo ka mid ah jamaahiirta SSC Khaatumo oo sheegtay in Laascaanood dagaalka ka socdo uu yahay mid lagu dagaalamayo laba aragtiyo oo ah gooni u goosad ay doonayaan Somaliland iyo waliba SSC Khaatumo oo doonayo midnimada Soomaaliya qodobada iyo qaar kale ayaa daawan doontaan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownee daawadayaal magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool duleedkeeda ayaa waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay wadaan ciidamada maamulka Somaliland ee SNM iyo waliba sidoo kale ciidanka difaacanayo deegaankooda ee SSC Khaatumo ciidanka maamulka Somaliland ayaa sidoo kale jab xoogan la kulmay saacadihii ugu dambeeyay kadib markii ay faarujiyeen taliska Gooja Cadde ciidamo ka tirsanaa kuwa SNM gaar ahaan ciidamada beelaha Garxajis iyo Habar Jeclo ciidamo ka soo jeedo beesha Sacad Yunis ee Garxajis oo gaarayay ilaa iyo 50 askari ayaa la sheegay inay soo baneeyeen taliska Gooja Cadde oo loo geeyay si ay qayb uga noqdaan ciidanka ku soo duulayo magaalada Laascaanood hayeeshee ciidamadan ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay baneeyeen halkaasi iyagoo oo gadood iyo caro uga baxay furinta dagaalka ee Laascaanood arrintan ayaa dhabarjab ku ah ciidanka maamulka Somaliland gaar ahaan saraakiisha ku sugan oo uu qayb ka yahay taliye Cambaashe iyo waliba sidoo kale Nuux Taani oo ah taliyaha ciidanka militariga ee maamulka Somaliland ciidamada Garxajis banaynta ay baneeyeen saldhigga Gooja Cadde ayaa ku soo beegmaysa xilli beesha Garxajis kacdoon cusub ay ku furtay Muuse Biixi iyadoo xildhibaanada beesha Garxajis ay Muuse Biixi ku eedeynayaan inuu ka shaqeynayo kala qaybinta beeshaasi xildhibaanadani oo laga soo doortay bariga Hargeysa galbeedka Burco iyo Ceerigaabo ayaa madaxweyne Muuse Biixi waxa ay ku eedeeyeen in uu wiiqayo midnimada shacabka Somaliland gaar ahaan beesha Garxajis Muuse Biixi Cabdi ayaana wajahaya mucaarad xoogan ka hor tartanka doorashada madaxtooyada Somaliland waxaana ay sheegeen beesha Garxajis xildhibaanadan ka tirsan in uu ka dambeeyo Muuse Biixi duminta iyo burburinta iyo waliba sidoo kale kala qaybinta beesha Garxajis sidoo kale waxaa tallaabadii ugu dambeysay ee beesha ay qaaday ay noqotay in ciidamadii ugu badnaa ee ka tirsan beesha Garxajis ay isaga soo baxaan taliska Gooja Cadde halkaasi oo lagu abaabulayay ciidamada maamulka SNM oo hadafkoodu uu ahaa inay weeraraan magaalada Laascaanood dhanka kale jabka ugu xoogan ee ku soo gaaray taliska Gooja Cadde ciidanka maamulka Somaliland ayaa waxaa qayb ka ah in halkaasi ay faarujiyeen ciidamo kale oo ka tirsan beesha Habar Jeclo ciidamadani Habar Jeclo oo halkaasi ay ku soo ururiyeen Cali Mareexaan iyo Maxamed Kaahin ayaa waxa ay halkaasi ka sameeyeen gadood iyagoo isaga baxay goobtaasi oo 3 maalin ka hor la keenay ciidamadan ayaa diiday in lagu soo bedelo ciidan infantry ah oo joogo aaga Nuurdaaq oo aan ka fogeyn Maraaga cabsi iyo argagax xoogan ayaana soo wajahay waxaana ay go'aankooda u sababeeyeen inay u baahan yihiin baabuur dagaal Cali Mareexaan iyo Maxamed Kaahin oo Habar Jeclo ah ayaa waxa ay ku howlan yihiin sida la sheegay inay ku qanciyaan inay dib u soo celiyaan ciidamadani Habar Jeclo waxaana la sheegay in Maxamed Kaahin iyo Cali Mareexaan ciidamadan ay ku sasabayaan amaba ay u sheegayaan in haddii ay tagaan ilaa og cidda la soo weerari doono ay u badan tahay ciidanka Habar Jeclo khasaaraha dagaalka Laascaanood ayaana la xaqiijiyeen beesha Habar Jeclo
oo horkacayso ay kaga dhinteen ciidamadii ugu tirada badnaa ee laga dilay ciidanka maamulka Somaliland. tallaabadan ay qaadeen ciidanka habar jeclo ee joogay aagga Gooja Cadde ayaa ku soo aadaya iyadoo la xaqiijiyay in ciidanka ugu dhimashada badnaa dagaalka Laascaanood dhanka Somaliland ay ka soo jeedaan beesha habar jeclo, waxaana beeshani habar jeclo la sheegay in lagu baabi'iyay dagaalka ciidamadoodii ka qayb qaatay intooda badan. tirada la soo sheegayo in beesha habar jeclo dagaalada Laascaanood looga dilay ayaa gaaraysa 478 askari, halka sidoo kale ay ka dhaawacmeen tira intaasi ka sii badan oo qayb ka ahaa ciidamada habar jeclo. dhanka kale Fahiime Yuusuf Quuje oo ka mid ah jamaahiirta SSC Khaatumo ayaa ka warbixisay dagaalada magaalada Laascaanood, waxaana Fahiime Yuusuf Quuje ay sheegtay in dagaalka Laascaanood uu soconayo ilaa inta Laascaanood dhibaatadii ay ku hayeen ciidanka Somaliland laga baxayo oo ciidankiisa uu kala baxayo Muuse Biixi guud ahaan gobolada SSC Khaatumo. Fahiime Yuusuf Quuje ayaana sheegtay in abtigeed oo hooyadeed la dhashay uu ka dagaalamayo Gooja Cadde duleedka Laascaanood oo hoobiye uu ku soo garaacayo. waxaa sidoo kale ay xaqiijisay in isir nacayb uusan ahayn dagaalka Laascaanood, oo waxa ay tiri isir nacayb ma ahan haddii aan sheego dhibaatada reerka aan carruurta u dhalay ama hooyaday dhalay ee Isaaq. taasina ma ahan bay tiri qabiil in aan necbahay 100 sano oo dambana haddii la sii joogo dhulbahante iyo Isaaq waxa isugu iman doonaan ma jiro. xitaa waxaan ka baqayaa ay tiri in guur la isugu iman waayo colaadda meesha ay gaartay darteed. Fahiime Yuusuf Quuje ayaa sheegtay in Laascaanood ay ku dagaalamayaan laba aragtiyo, midna ay tahay gooni u goosad oo Somaliland ay doonayso kuna dagaalamayso, iyadoo tan kalena ay tahay tan ay ku dagaalamayaan reer SSC Khaatumo oo ah midnimo doon. waxaana ay sheegtay inay filayso in aragtida reer SSC Khaatumo ee midnimo doonka ay ugu dambeyntii ku guuleysan doonto dagaalka Laascaanood. dhanka kale waxay xaqiijisay in Laascaanood dilalkii xaqdarrada ahaa iyo dhibaatooyinkii ka dhici jiray la ogaaday inay ka dambeysay maamulka Somaliland, maadaama ay xabad ku bilaabeen shacabka Laascaanood kadib markii garaadada SSC ay ku dhawaaqeen in ay hoos tagayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya. ugu dambeyntiina daawadayaal, dowladda Mareykanka ayaa rajo wanaagsan waxay ka muujisay dadaalada dowladda Soomaaliya ay ku rabto in looga qaado xayiraadda hubka ee saaran. safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh ku amaanay inay qaadayso tallaabooyin muhiim ah si looga daboolo halbeegyada cunaqabataynta. sidoo kale safiirka Mareykanka ayaa waxa uu xusay in maaraynta hubka ay xilligan Soomaaliya ka caawinayso fududeynta shuruudaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee qaadista nidaamka cunaqabataynta saaran dalkeena Soomaaliya. Andre ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka weli ay ka go'an tahay in uu sii wado taageerada Soomaaliya iyo in la xaqiijiyo in ciidamadeeda ay helaan hubka ay u baahan yihiin si ay ugu guuleysato dagaalka dowladda ay ku ciribtirayso kooxda Al-Shabaab. Mareykanka ayaa qayb ka ahaa shirka sanadlaha ee maaraynta hubka iyo rasaasta, kaasi oo looga arrinsanayay qaadista xayiraadda hubka ee saaran Soomaaliya. shirkaasi ayaana waxaa ka qayb galay xubno ka socday beesha caalamka, xubno ka socday dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaysay shirkani. guud ahaan daawadayaal, intaas ayaanu kusoo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad daawanayseen. fadlan muuqaalka intaadan ka bixin channelkan subscribe saar, muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro. waana mahadsantihiin.